السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada Tix Technology. Waa cashar kale oo ka mid ah casharada imtixaanaha. Casharka waxaan ku baran doonaa waxa loo yaqaano maskiga ama clip mask kolba kii waxa weeyaan ugu yeedho cusub. Waxaan isbar dhigi doonaa markaa farqiga u dhexeeya Adobe Photoshop iyo soo kale Adobe Illustrator. Waxaan isticmaalay markaa Adobe 2023 Photoshop iyo AI labadaba. Way aan guda galno. Halka waxay yeelaan laba shay waa sawirka iyo soo kale ellipse ama circle. waxaan u baahnay markaa inaan sawirkayga dhex geliyo wax loo yaqaan circle-kan markaa shay isku asku mid la isticmaalo sax weyn shay loo yaqaan rectangle la isticmaalo shay loo yaqaan wax weyn polygon-ka iyo soo kale la isticmaalo triangle waa isku mid oo midna qaabka loo raaciyo ama habka la raaciyo marka la dhex gelinayo waa jasan way hadaba maxaa laga baahan yahay ugu horeyn shayga laga baahan yahay ugu horeyn waxa weeyaan sawirkayga hadda eegto waxa sareeya marka waa ellipse-ka shaqada koowaad aan qabanay waxa weeyaan sareysiyo sawirka koow shaqada labaad laga baahan waxa weeyaan in isleekaadaan sawirkayga iyo soo kale shape na sawirkaygu yaanu noqon shay ka yar waa in wax weeyaan dhamaantii wada qariyaa oo si fiican wada leekaadaas shape koosay waa talabaad waa inuu istul yaalan labadooda yani midna wax weeyaan ahaan meel gaar isku olin midna wax weeyaan meel gaar waa in labadooda istul yaalan koow waayahay haddii wax weeyaan leer u dhexeeyo shaqadaas kuma qabanay shaqada midna way dhici laakiin halka u baahnid ma geliyo waa in aan wax leer u dhaxayn labada shay doonaysan isdhex geliso na sawirka iyo shape way salahan shape-kana u dhaxeeya shape-kana kor u qaada okay aan iska wada garay muhiim ah ma baanin way labadooda soo qaadin soo dhig sug haddii aad doonayso course-kan oo faahfaahsan waxaad u heli karaysaa qaab online ah adigoo ku dhiganaya website-kayga tix.com soo kale waxaad ku heli karaysaa qaab offline ah oo haddii aad Hargeysa joogto aad noogu iman karto classes-ka aad halka ku dhiganayso ka faa'iideyso inagu celiyo muuqaalka hadaba dhowr talaabo ma samayn karaya koow inay dhahdo right click kadibna marka ka right click loo dhigay wax weeyaan qana sawirka right click kadibna create clip mask way waxaan arkaa markaas sawirkaygu wuxuu dhex galay shape-kii koosay haddii aan doonayna ka saaro haddana waxaan karaa right click release okay way talaabada labaad aan qaadi karay si aan u dhex geliyo sawirkayga shape-ka waxaan qabanayaa keyboard-kayga alt waxaan dul istaagayaa ama dhex istaagayaa labadooda shape-ka iyo sawirka dhexdooda calaamad warkiis ku bedesho flyer and click siinaya then wuxuu sameeyaa mask okay labada hab marka wax weeyaan uu sameyn karaa mask shaqo loo yaqaan waa sidaan hore soo sheegnay shapeska kaadu baanto isticmaali kartaa isla talaabooyinkan wada qaadaysaa way waxaan imanaya kala yaqaan daba AI-ga isla sidii waxa kan yaala waa sawir iyo soo kale shape marka wax weeyaan qasam laha marka seen isticmaasho ellipse aan iska bedelnaba waxaan iska isticmaalayaa Canva way shift la qaba kan igu sawir aan soo dhig way maxay isbedelay hadaba AI-ga intii hore ku soo aragnay xoogay wax yar ba isbedelaya ka koowaad isbedelay wax noqonaya wax la yaqaano waxa sareynaya shape inaha hadeen Photoshop ku soo barnay inuu sareeyo sawirku halka waxa sareynaya wax la yaqaan shape okay waxaan hooseynay markaas sawir labadan hele saari helad marka saaro saddex meelood ay wax weeyaan ka sameyn karaya maskiga masti waa qasab inaad wax weeyaan hele saartaa helad marka saari kadib waxaan tagayaa meesha la yaqaan object-ga waxaan ka tagayaa halkii qoran tahay clip maski then waxaan taabanayaa make way sawirkayga maxaa dhacay wuxuu dhex galay shape-kii koosay ama waxaan jeedaa shape-kii ka sareeyay waa inaga nidhi Photoshop-kana sawirka hooseynaya sawirka sareynaya xagga AI-ga uu sawirka hooseynaya way taas waa talaabada koowaad talaabada labaad qaadi karay wax weeyaan marka soo isku dayna wax weeyaan ka tigin select-ga keyboard-ka waxaan isticmaalayaa Ctrl+7 si halkan loogu qoranba clip mask okay Ctrl+7 highlighter Ctrl+7 isaguna wuxuu noo sameeyaa mask way talaabada saddexaad waxa weeyaan right click kadibna make clip mask saddexan meelood wax weeyaan ka sameyn kartaa shape inaad dhex geliso sawir waayahay haddii aan u baahnayn sawirku kaliya inaan qaado imika tusaale ahaan ka dansan qaad waxaan arkayaa labadoodii oo wada qaadmayaan inaan sawirkii shape-kii isu dhex jira laakiin sawirku kaliya u baahnay inaan yara turkiyo ama dhinaca centerka ku beego kale waxaan taabanayaa xagga sare waxaan haystaa keyboard waxa loo yaqaan tool-ka loo yaqaano move tool okay kanaan markaa doonay edit content markaan doorto sawirku kaliya maxaan sameyn karaa wax ka bedel tusaale ahaan sidaas kan weydiin karaya meeshu yaalay maaha meel kale aan geyn karaya okay عشان مركب وين انت ان شاء الله عشان كنا عشان كنت كل منه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته